taaganahay waa Garraala National Park dhulkan baaxadda weyn barwaaqada wuxuu ku fadhiyaa 1734 kilometer square degmada Hudad waxay u jirtaa 107 kilometer hadda degmada Muwaariga u jirto 45 kilometer sidoo kale santarka Sororo ka tirsan degmada Mooyaale waxay u jirtaa in ka badan 20 kilometer hadda waxa xusid mudan Garraala National Park ilaa asaasay 1998 taariikhda Itoobiya isla mar ahaantaana 2000 taariikhda Itoobiya ay la wareegtay dawladda dhexe waxuna kamid yahay Garraala National Park 13 goobood ee loo dalxiistay ee ku yaala wadankan Itoobiya iyadoona caasimada dalka Addis Ababa dhinaca koonfur bari uga jirta 890 kilometer waxaana saaraan Garraala ku dhaqan in ka badan 250 nooc oo shimbiraha kala duwan halka 42 nooc oo duurjoogta naasleyda ku nool yihiin waxaana kamid ah duurjoogta laga helo baarki biciidka goodirka garanuugta doofaarka daanyarada kale mudane taariikhda taajo oo ah kusimaha maareeyaha seeraha duurjoogta qaranka iyo Cabdiwali Xuseen oo ah isaguna madaxa xiriirka arrimaha bulshada dalxiiska iyo waliba sidoo kale agaasinka ilaalinta daryeelka khayraadka baarkiga mudane Xuseen Maxamed aanu wareysanay ayaa naga warbixiyay xaaladda guud ee goobtani parku ka tamasarata jamro ወይም ከተቋቋመ ጀምሮ ብዙ ስራዎችን ያከናወነ ይገኛል በፓርኩ ውስጥ hawlaha uu seeruhu qabto markaan eegno laga soo bilaabo xilligii baarkiga la aasaasay ama la dhisay waxa seeraha duurjoogta laga wadaa shaqooyin kala duwan oo yoomiye ah shaqooyinka aan gudaha seeraha ka wadnana waxa kamid ah hawlaha ka hortagga ugaarsiga sharci darrada ilaalinta daaqsinta deegaanaynta ku meel gaarka iyo waliba hawlo kale oo badan shaqooyinkanna waxaan ku qabanaa shaqaalaha ciidan maroodiga bulshada ilaa madaxafiiseedka baarkiga waxa waqti xaadirkan ka hawlgala ku dhawaad 36 xubnood oo shaqaale ah waxaana noo qorshaysan inaan dhawaan soo saarno nidaamka meelaynta iyo buuxinta xuduudda shaqaalaha oo uu xafiiska sare ee wakaaladda horumarinta duurjoogtu fulinayo si markaasi loo sii xoojiyo hawlaha horumarinta seeraha waxa kale oo intaas dheer waxaan qorsheynay inaan tababar lagu kabcinayo fahanka iyo garaadka bulshada deegaanada seeraha ku xeersan oo ay wakaaladda horumarinta iyo daryeelka duurjoogtu fulinayso aan ku qabanno magaalada Mooyaale qorshaheena 2012 waxaan heshiisyo wada shaqeyneed la saxiixanay maamulada degmooyinka deriska la ah baarkiga ee sida Mubaarak Hudad Qadaaduma iyo waliba Mooyaale waxayna hawluhu ku socdaan annagoo bulshada iyo maamulka la sameynayna wada tashi iyo wada xaajood dhawaanna waxaan noo qorshaysan inaan bulshada iyo maamulka tuulooyinka degmooyinka gobolada iyo haddii la karo xafiisyada heer deegaan aan seeraha duurjoogta dalxiis ku soo tusno si aan ugu sheegno ama aan u tusno waxa ay yihiin dhibaatooyinka ka jira baarkigu duurjoogta badana jira laarjuma nooca shimbirta nooca 100 ilaa 180 baa jira kuwi laarjuma maas ilaa 26 baa jira marka geedaha iyo cooska badan baa jira shimbirta meel kale lagu heleelin Ethiopia bas lagu helay oo meeshan waa ku jirta marka Garraala Parku hadda federaalku wuxuu maamulaya 10 sano meelahaas isbedel badan baa jira dhanka infrastructure-ka dhanka shaqaalaha iyo community waa wada shaqeyna maamulka waa wada shaqeyna ciidanka oo booliskana wada shaqeyna dhanka shacabkana waa higelinta waan siina xagoodii waan soo maraa dhibkoodii waan soo fiirina marka cid qosheeso oo in meesha maaragtay si fiican oo wax lagu qabto in si fiican oo shacabkana ka faa'iideysan Garraala Park yeesana mahdaarna tabaqana wadada wardanay waxaan ahay agaasinka daryeelka ilaalinta iyo xakamaynta khayraadka seeraha sida aan wada ogsoonahay seerahani wuxuu ka mid yahay 13 seera qaran ee ay wakaaladda horumarinta iyo ilaalinta duurjoogta Itoobiya maamusho markaan xaaladda baarkiga eegno seeraha waxa ku duugan khayraad caydin oo aan la taaban waana seere aad ku soo jiidanaya oo cajiib ah isla markaana uu ku duugan yahay
yahay khayraad dabiici ah sida aan wada ogsoonnahay seerahan waxaa ku dhaqan duurjoogta iyo noocyada kala duwan ee shimbiraha soo jiidashada dalxiiska leh ee baarkiyada duurjoogta Itoobiya ku nool intooda badan sidaad aragtaanna khayraadka dabiiciga iyo kaymihii baarkiga oo dhan waa sidoodii caadiga ahayd oo aan la taaban laakiin markaan leenahay khayraadka seeruhu sidiisii ayuu u dihin yahay oo lama taaban kama dhigna wax dhibaato ah looma geysan ee waxaa jira shaqooyin yaryar oo naga dhiman maadaama ay shacabka seeraha ku xeersan xoolo dhaqato yihiin oo ay hadba meel u guurayaan marmarka biyaha iyo baadku ka yaraado ayay iyagoo daaq iyo biyo doonaya ayay baarkiga dhex degaan taasina annagu maamulada tuulooyinka degmooyinka iyo gobolka iyo gudiyada waxgaradka kaashanayna oo shacabka waxbarayna ayaa maadaama uu seeruhu yahay mid mustaqbalka faa'iidooyin badan u leh bulshada isla markaana si aan khayraadka baarkiga jiilka dambe u dhaxal siino tirada duurjoogtana aan u kobcino ayaa si aan dakhliga dalxiisayaasha ka soo gelayo u kobcino ayaan dhibaatooyinka xallinaa shacabkuna waa shacab dhaganugul oo wax walba haya ku dhahaya oo wax maqla sidoo kale waxaa isaguna aan waraysanay Siraaj cali nuur oo ka tirsan booliska dowladda Soomaalida gaar ahaan booliska ka howlgala degmada Hudad maadaama dadweynaha ay soo degaan mar walba oo ay maaragtay isdhibeen oo dhibaatooyin fara badan ay ka sheegteen in aan ka saarno maaragtay xoolaha si sharci darrada ku soo galayo maadaama meeshan baarki ay tahay national park u yahay oo la yaqaan in aan maaragtay kala rarno oo wixii dhibaatooyin ku imaadana aan la qabanno awalna hore waan la qaban jirnay waan la shaqeyn jirnay haddana maaragtay sidaas ayaa maaragtay wada shaqeyn uga dhaxaysa xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska dowladda Soomaalida ayaa dadaal xooggan ugu jira si loo horumarin lahaa goobaha dalxiiska deegaanka si loo helo ila dhaqaale taasoo deegaanka waxtar weyn u leh maxamed deeqaman SRTV bartamaha Garaa National Park gobolka Daawa